saaxiib maanta waxaan ka hadli doonaa siigada iyo sida ugu fudud ay iskaga joojin karaan ragga iyo dumarka. sida aan wada ogsoonnahay qofka marka uu soo qangaaro wuxuu dareemayaa waxyaalo ka cusub jirkiisa siiba xubnaha taranka. wuxuu arkayaa isbeddelo waaweyn kuwaasoo la soo gudboonaada jirkiisa. wiil hadduu yahay waxaa isbeddela codkiisa, wuxuu noqonayaa cod waaweyn oo doobi ah. sidoo kale waxaa u soo baxa shuun ama bisqin waxaa tiraadaba, kaasoo ka soo baxa hareeraha xubnaha taranka. sidoo kale wuxuu arkayaa riyo la xiriirta galmo, markaasi wuxuu isku arkayaa biyabax ama shahwo jirkiisa ka soo baxaysa. marka uu arko astaamaha qaangaarka wuxuu bilaabayaa inuu raaxo ka dareemi isbeddelkan jirkiisa ku soo kordhay. sidoo kale gabadha iyaduna isbeddelo ayay arkaysaa, sida naasaha oo kale, sidoo kale shun ama timaha hoose, iyo codkeeda oo noqda cod jilicsan. waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan inay iyaduna qaangaartay. sidoo kale waxaa laga yaabaa gabadha inay riyooto oo ay isku aragto biyabax, shahwo ama dareen. marka meeshaasi ayay ka bilaabanaysaa siigada ama seegada waxaa tiraadaba. siigada haddii ruuxu uu barto rag iyo dumarba way siigaastaane way ku adkaanaysaa inuu joojiyo qofka. waxay u noqonaysaa balwad uusan ka hari karin. qofka siigaysta wuxuu dareemayaa dhibaatooyin xagga nafta ah. waxaa ka mid ah yaxyax, xishood, wuxuu ka fogaanayaa bulshada. maanta oo dhan fikir iyo xishood ayuu ku jiraayaa. taasi waxay saamaynaysaa waxbarashadiisa, shaqadiisa iyo noloshiisa guud ahaan. waxaa laga yaabaa xitaa inuu naco cuntada. fikirkaasi awgiisa waa fikirka siigade. sidaas daraaddeeda dhibaatada siigada ay leedahay way badan tahay, balse halkan laguma soo koobi karo. waxaa su'aal ah oo jawaab u baahan: sidee siigada loo joojiyaa? siigada joojinteeda waxay u baahan tahay go'aan adag oo qofka ka soo fula. waxyaalaha ugu muhiimsan ee qofku uu ka gaashaaman karana waxaa ka mid ah qodobadaani soo socdo. 1. in uu qofku ilaahay ku xirmo, cibaadada iyo weysada ilaaliyo, qur'aankana si fiican u akhriyo. 2. inuu shahwadiisa ku jabiyo soon. soonka wuxuu yareeyaa kacsiga. waa soonka rasmiga ah, ma ahan qofka inuu soomo marka uu afuro inuu cunto badan cuno, cuntadaasoo u keenaysa inuu qofku kacsado kadibna uu badda siigada galo. 3. inuu iska ilaaliyo ku soo daahidda musqusha, waayo waxaa ognaa badanaa in lagu siigaysto musqusha. waayo shaydaanka ayaa wuxuu kugu xambaarayaa inaad samayso ficilka siigada. marka aad musqusha dantaada ka dhammaysato ka soo bax. 4. markuu seexanayo qofka waa inuu seexdaa marka ay hurdo qabato keliya. waa inaadan seexanin haddaysan hurdo ku haynin, sariirta ha tagin. waxaa laga yaabaa in fikir kugu dhashaa kadib ay meeshaasi ka dhalato ficil siiga. qodobka 5. inuusan seexanin keligiisa qol, waayo nimada qofka waxay ku xambaaraysaa inuu siigaysto. qodobka 6. sawirada qaqaaban waa inuu qofka ka fogaadaa. sawirka qaaban wuxuu kiciyaa dareemaha, markaasi qofka wuxuu ku ridaa badda siigada. 7. sidoo kale inuu isku mashquuliyo waxbarasho, shaqo iyo waxyaalo kale oo nafsadiisa wax u tarar u leh. arrimahani siigada ayay ka hortagaan. waa daawada siigada. saaxiibka siigaystow ama saaxiibada siigaysatay, waxaa kaloo loo baahan yahay inaad ogaataa in siigada ay dhibaato u leedahay caafimaadka xagga maskaxda iyo caqliga iyo xubinta taranka. waxay leedahay biyabax degdeg ah dhanka ragga. haddaba ragga siigaysta xaasaskooda waxba kama qaadi karaan. sidoo kale galmada sariirta way ku fashilmaan inta badan, waayo gacanta ayay u barteen in ay biyaha isaga keenaan. haddaba aan ka digtoonaano ficilkaani xun. muuqaalkaani intaas ayaan kusoo ekeenayaa. fadlan channelka subscribe gareey oo videogan la gareey. commentiga ama fikradaaduna waa ii muhiim. saaxiibayaal, muuqaalka xiga ayaa noo balana.